daawadayaal waxaa khadka telefoonka si toos ugu jira wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka Jubbaland Engineer Cabdi Sheekh Xuseen Maxamed saacadda wasiir waanu kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga qaaliga ah ugu horeyn ku soo dhaw telefishinka bulsho aad ma santiin adiga bulsho TV dhamaan iyo nageysayaasha qiimaha leh wasiir waxa jirta in horey loogu sameeyay muddo kordhin laamaha dawladda ee waqtigoodu dhamaaday isla markaana uu ku jiro madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo muddo kordhintaasi loo sameeyay waxa ka soo horjeedsaday maamulada Jubbaland iyo Puntland oo iyagu horey uga biyadiiday muddo kordhintaasi loo sameeyay muddo kadib waxa iyaguna go'aankaasi ka soo horjeedsaday maamul goboleedyada kale ee soo hadhay sidoo kalena waxa go'aankaasi laga soo horjeedsanay muddo kordhinta taageeray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble intaasi kadib waxa bulshada si toos ah ula hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo isaga oo sheegay inuu hortagayo golaha shacabka isla maanta madaxweynuhu waxa ka dhabeeyay go'aankaasi hore u qaatay ee ahayd inuu hortago golaha shacabka khudbadna uu ka jeediyay madaxweynuhu saacadda wasiir idinku ka Jubbaland ahaan sideed u aragtaan khudbadaasi uu maanta jeediyay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ee uu ka horjeediyay golaha shacabka محمد waxaan u aragnay waa kulay sida la waan filaynay ma aynan noqonin laakiin sibay dhaantaa sida hore way dhaantaa laakiin kuma aanu qanacsanin annagu boqolkiiba boqol khudbadii iyo go'aamadii uu gaaray waxaan ka filaynay inuu ka fiican sameyn karayay ummadana dan waa marka waxa ka wanaagsaneyd inuu wareejiyo xilka nabadgelyada wadanka oo khalkhal badan galay oo adagtay xamar in la soo fadhiyo waxa fiicneyd in uu wada wareejiyo go'aamada uunan haafna la harin haafna uu wareejinin mid kale iyadoo qoraal ahaan ma uu wareejinin marka way fiicneyd khudbadii oo rol hadda ma dhahayno way xunayd laakiin sidii la rabay ma ahayn annagu kulli Jubbaland ahaan kuma aanu qanacsanin in lagu laabto heshiiskii 17 September idinku xal ma aragtaan ka maamul Jubbaland ahaan waa khasab in lagu laabto bariya ma aha laakiin qaabka loogu laabanayo iyo sida uu noqonayo ayaa muhiim ah laabashadu macna male waa lama huraan in wadanka doorasho laga qabtana waa in la soo fariisto sidii loo maamuli lahaa loo implement lahaa laga wada hadlo taasi in qaqashaad iyo canaad iyo la galiyo kala gogoyn iyo ciidanka meesha maamuli iyo prime minister ka xukuumadda kala ana xukuumad la yiraahdo ma aha marka waxa fiican in la wada wareejiyo authority oo madaxweyne hore Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo la mid noqdo candidate kale maadaama uu musharax yahay oo isagu xukunka qaar oo la harin ama uu gadaal u reebanin ayaa ahayd arrintu taana ku boorinayna inuu sameeyo anagu ka Jubbaland ahaan awoodda waxa lagu wareejinayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo garwadeen ka noqonaya amniga doorashada bal hadda ka Jubbaland ahaan sideed u aragtaan in amniga hadii lagu wareejiyo ra'iisul wasaaraha doorashadii ma suurta galaysaa ma qabsoomaysaa sideed u aragtaan idinku arrintaasi ma amniga lagu wareejiyo doorashada prime minister laakiin tii xamar yaa lagu wareejin ciidamadii baa soo fadhiya labada dhinac maxay taraysaa hadii wadanka uu amni la'aan yahay tii doorashada lagu wareejinayaa maxay taraysaa maxaa la hadaya ay oogyahay in lagu qalciyo oogyahay in dambi galo oogyahay inuu dhibaato ka riday wadanka maxaa maalinba waxa la hadaya maxaa dadku u dhibaateynaya arrintaasi waa ka soo horjeednaa waano arrintaasi aad baan nooga xunahay marka idinka go'aankiina iyo sidaad xal u aragtaan ka maamul Jubbaland ahaan talo maxaa la oran karaa idinku maxamed waxaan u aragnaa inuu fully wareejiyo controlka ciidamada iyo gaarsiinta doorashooyinka dalka inuu prime minister ku wareejiyo simple intaasi ha sameeyo madaxweynuhu qoraalna ha ku sameeyo hada wa salaam markaas hawshu way soconaysaa amniguna wuu sugmayaa ciidankuna waa la kala qaadaya laakiin beerka jecli ma soconayso maamulada Puntland iyo Jubbaland waxay horey u hayeen xulafo wadaag ama way isgarabsanayeen maamulka Puntland waxa sheegay inaanay ka qayb galeen casuumaad uu fidiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ilaa ay ka helaan casuumaad rasmi ah beesha caalamka idinka ka maamul ahaan Jubbaland ahaan ma ka qayb galeysaan casuumadaasi uu fidiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mise idinkuna go'aanka ay qaadatay Puntland mid lamid ah ay qaadatay annaga iyo Puntland waa run xulafaan ahayn laakiin waxaan xulafo ku ahayn
inaan difaacno sharciga dalka. waxaan xulafo ku ahayn in wadanka degdeg loo gaarsiiyo doorasho maadaama waqtigu uu dhamaaday. arrinka ay hadda qaateen sheegaysana way ku saxayeen, annaguba kaasaan qaadanay. maxaa la yidhaahdaa azumaad uu sameeyey maxamed cabdullaahi farmaajo kuma imanaynaa annagu. waxaan ku imanaynaa mid ay sameeyeen beesha caalamka iyo prime ministerku oo nabadgelyadeedu ay sugan tahay oo ciidankii magaalada xamar labad loo marayo. laakiin ciidan baan dhinac ku haysanayaa prime ministerka la yidhaahdo wixii doorashooyinka amnigooda ilaali taa ma soconayso. marka way saxan yihiin Puntland inay taa qaataan, annaguna iyadoo kale un banahay. ugu dambeyn waxaa jirta in weli ciidan ay safar fadhiyaan sida adiguba dhowr jeer carabowday ciidamadaasi oo kala taabacsan midowga musharaxiinta mucaaradka iyo sidoo kale ciidamo sheegay inay ka gadoodeen isla markaana ay diideen muddo korodhsiga uu sameystay madaxweynuhu. markaa imika ma jiraan xal labada ciidan lagu kala hor qaadi karo oo idinku aad oran kartaan halka iyo halkaas lagu kala kaxayn karaa labadaasi ciidan? waxaa lagu kala qaadi karaa in madaxweynuhu xilkiisu dhamaaday uu tanaasulo bataatan buu banaanka ka istaaga hawshani. prime ministerkana 100% lagu wareejiyo gaarsiinta doorashooyinka uu isagu daadaheeyo isagoo kaashanaya beesha caalamka. taasi waxaan u aragnaa inay xal degdega keenayso isaguna uu musharaxiintiisa ka mid noqdo. kursigu waa kursi la wadaagayo ummadda Soomaaliyeed ka dhaxeeya. Sacaadatu Wasiir aad baanu kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga qaaliga ee siisay telefishinka bulsho. aad baad mahadsantahay Sacaadatu Wasiir. idinka salaam calaykum.